السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابي سيتم في عنتين ما أنتوا حارة وحوغا إنا إذن كشيكيو برشلة ميديسينكا وحانا هاي أرديت أو ديغتا ميديسين أو كديغتا ودنكا تركيا waxaan baranayaa dhakhtarnimo sanadkii shanaad waaye sanadkii afraad ii dhamaaday alxamdulilah alshukrillah sanadkii shanaad gaal rabaa had sanadkan markii oo sanad dugsiyeedka iskuulaadka jaamacadaha oo la furo bilaaba hadduu ilaahay idmo medicinka markaa bilaawid jaamacadda 6 sano laba qayb oo kala qaybin kartaa 3 sano ugu horeyso iyo 3 sano kale ugu dambaysa 3 sano ku xigto 6 sano ma ho 3 sano ugu horeyso waxa badan la qaataa teoriga la qaataa teoriga fasalka la fadhinaa isbitaal ma arkaysid bukaami wax ma arkaysid caadi macallin adoo isku fadhisin marka hool mismeela 10 lagu qaataa 10 lagu qaataa badan 3 sano ugu horeyso 3 sano kale oo xigta waxa la qaataa isbitaalka la aadaa isbitaalka 10 lagu soo qaadanaa isbitaalka marka waxa jiro fasalooyin jiraan 10 meesha lagu qaataa kadib adi hal saacadood mid 45 daqiiqo 10 soo qaadanay waa bixi bukaamaha ku soo wareegay isbitaalada saas waay 3 sano ugu horeysa ka bilaabo fasalka koowaad badana waxa la qaataa anatomy physiology biochemistry sanadka labaad kuwaas kuwa la mid ah sanadka saddexaad waxa la qaadanaa cudurada la qaadanaa laakiin wili fasalka la fadhina fasalka lagu qaataa adi pathology cudurooyinka pharmacology daawooyinka la bilaabaa iyo maadooyin iyo kuwaas amala jiraan oo la qaadanaa sanadka saddexaad sanadka afaraad isbitaal la bilaabaa anigu tusaale ahaan jaamacadeen sanadka saddexaad isbitaalka bilaabna isbitaalka sanadka saddexaad toos mu aadeen laakiin tusaale ahaan waxa jira isbuuci laba mar isbitaalka aad jirin labadaas barna bacdul qado talaadi maxay ahayd iyo khamiis talaadi khamiisi iskuulka isbitaalka aad jirna jaamacada ka bixina jaamacada isbitaal ay leedahay isbitaalkeeda aadayna bukaama soo arkayna macallimiintu waxay sameeyaan isbitaalka aad xoogaa bilaw way la qabsashada sanadka afaraad si uu la qabsano bilaw saasay ahayd sanadkeen saddexaad kadib sanadka afaraad fuul wada isbitaal waaye sanadka shanaad saas waaye sanadka lixaad 10 ma jiro imtixaan ma jiro wax dhan ma jiro kaliya waxaan qanay dhakhtar ahaan inaa u shaqeystaa bilaaway adi shaqada markaa bilaawid hadhow kala banaanka isbitaalada kala dhakhtar wuxuu sameyn lahaa tartiib oo bilaaway saas la ana sanadka shanaad ahay sanadka afaraad isbitaalka la joogaa isbitaalka tusaale ahaan ka soo qaad laba saac bar xisaab leedahay 10 leedahay waxaa joogtaa qaybta haweenka gynecology qaybtaas joogtaa waa bixay subaxii laba saac bar fasalka fariisane macalinka sugay macalinka ku imaanayo markuu ku imaado kadib 10 lagu siinaa 10 ka qaadanay 45 daqiiqo mis hal saac bis nus saac waxayna qataada 10 baqtigaas jadwalku wuxuu yahay 10 markaa qaadatid kadib waa bixay macalinka dawraace bukaamada lagu soo wareegaa ilaa ay qaadada bacdulqada saas waay bacdulqada waxa laga yaabaa mararka qaarkiis aday qaybta joogto isbitaalka ku xiran tahay 10 inaa qaadid 10 kadib hadana bukaamada lagu soo wareegaa saas waay lixaad 10 ma jiro imtixaan ma jiro wax ma jiro kaliya adi bukaan toos arkaysiin waxaan qanay dhakhtar oo caadi ah mise dhakhtar oo intern aan qanay adi wili baraatika sameynaysaa imtixaanka see loo galaa marka 3 sano ugu horeysa imtixaanka si loo galay gooni waaye 3 sano ugu dambeysay mise 2 sano kale afraad shanaad asina gooni waaye isbitaalka lagu soo galaa kaas 3 sano ugu horeysa imtixaankooda tusaale ahaan ka soo qaad bisha ugu horeysa mise bil bar 10 la qaadanaa 10 la qaadanaa 8 maado 10 maado 12 maado waxa markaas qaadanaysid waxa ku soo galeen macallimiinta ku soo galeen mise mawduucida wixii qaadid kulli tusaale ahaan bisha 20 imtixaan leenahay bishaas 20 imtixaanka leenahay hal mar ay ku wada imaanayaan maadooyinkaas kulli mawduucida hala qaad way yaryihiin way badan yihiin wax lahaay ma jiraan hal mar wada galay hal mar la fariisana imtixaankaas saacadahaas lagu kalkacaa sanadka dhamaadkiis final la galaa finalkaas bish sagaalaad hada jaamacadda bilaawid sanadka kale bishiisa sagaalaad mismay sanadka kale bishiisa lixaad toddobaad 10 ka qaadatay kulli hal mar waa inaa wada akhrisid hal mar imtixaanka galay asina waxa laga rabaa jaamacadaha way kala duwan yihiin laakiin jaamacadaha qaarkood 60 wixii ka koray adi sanadka dhan imtixaanada waxa laga baahan yahay 60 iyo wixii ka koray inaad gudid hadii ka hooseysid waa ku dhacay
fasalka ku dhacay re exam ma galay re exam ka naftirkiisa hadii 60 hadii keensan weysid no asina waxaa naqanay sanadkaas kale fasalkaas koowaad mis fasalkaas labaad mis fasalkaas saddexaad ad fasalka galaysid ina bilaw ka soo bilaawid oo marka la aqaadid naqanay عشر كلا قاعدين عشر كاس اسكسوجودا وحلها مجرى عشرين كلي هالمرادين وضع بلاوي سدح سنة ورس امتحانك إسبتالك امتحانك مركز سير لوجا لعمه إسبتالك مركز جوتد عشرة واسوقات ويقول مالين هل بالإبر أيضا مسا أسبوع امتحان 10 ليلة 10 سوقات 10 مركز سوقات تكذب سدح سيا لوجا الكرا تصال أهان تستيا أو قلي امتحانك تستيا أو قلي iyo baratika isla qibas oo aad joogtid iyo suuslu waxa lahaay mise oral mise macalinka aku hor fariisana 10 ku dhig wajika imtixaan 10 wax lagu warsana su'aalaha lagu warsana ay su'aalahaas ka jawaabay testiga caadi doorashada qof kasta uu ka saa baratika sabab maaha baratika asna baratika iskuulka jaamacad markaa joogtid ma aha bukaana arkay salahan bukaana ku jiifo bukaankaas waa baxee bukaankii su'aalaha soo warsanay mas'uulkiisa mas'uuliyiisa soo ogaana macalinka bukaanku ku dhiiba mas'adi qaybtaas inta joogto bukaana iska leeyahay bukaankii waa dheem qolkaas qol lagu sinaa laba qol hal qol qolkaas bukaamadaas waxa sameynay su'aalaha soo warsanay cudurrada qabaan waxyaalaha qabaan waa soo aruurinay waa keenay kuwii as fiican u fiirnay macalinka marka qofkaas wuxuu qabo qolka bukaanka ku jiro cudurku rabo ha naqdo wuxuu rabo ha ahaado kaas lagu warsanaa imtixaanka saas waa baraatikada mis macalinka soo baxaayo bukaan korkiisa la imaana hay bukaanka maxaa ku sameynay maxaa ku fikraysaa maxaa saan leeyla kadib saa u bixinaysa isbitaalka uu diray kulli wax kasta waa lagu warsanaa adi wax kasta ku warsan karaa imtixaanka oo oralka ka dhahoono mis soosluha ah asina tusaale ahaan laba macalin badana laba macalin saddex macalin imtixaanka galay laba professor hal xabo dhaqtar u naqana mise macalimiinta oo 10 ku dhigeen kulligood imtixaan laga galaa laakiin qof kasta macalina ku soo aaday saddex macalimood saddexda macalin qolka ku jiraan way fadhiyaan ay qolkiya u galay mise meesha joogaana uu tagay qolkiisa uu tagay okay fariisa lagu dhahaa waa fariisanay su'aalaha lagu warsanaa hal macalina bilaaway markuu hadalka bilaawo su'aasha maxaa su'aaliya lagu warsanaa su'aalahaas ka jawaabay asi wuxuu dhahaa marka ma hadlaayo adi wax masmeyn kartid okay macalinka wuxuu dhahaa ani su'aalahay way ii dhamaadeen qofkan kala sii wado macalinkii kala hadana qofka kala dhaqtar kala bilaawa asaas su'aalo ku warsanay hadday saddex yihiin ka saddexaad haduu su'aalo bilaawa asaas su'aalo ku sii warsanayo saddexda buundooyinka ku siiyaan la isku dardaraa waa la isku qaybinaa qadadijaca la galaa kadib halaha qaadatid iyo buundooyinkii testiga ku qaadate imtixaankii go'aan gelinta bis imtixaanka oo caadiga warqada ah iyo imtixaanka baraatikada bukaanka korkiisa soo qaato kulli waadin waa la isku sii dardaraa waa la isku sii qaybinaa halaha qaadata asina waxa laga baahan yahay 60 iyo wixii ka koray inaad keentid fasalka afraad saan waay fasalka shanaad saan waay fasalka lixaad imtixaan ma bajiro maqlay 10 ma jiraana maqlay saas waay